Asalaamu calaykum asxaabta sharafta leh kusoo dhawaada mar kale casharkeeni. Maanta casharkeeni wuxuu ku saabsan yahay conversation, wada sheekaysi. Weli waxaan ku dhex jirnaa qeybtii wada sheekaysiga. Wada sheekaysi ayaan ku dhex jirnaa. fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato channelkeena subscribe star furo gambaleelka si aysan ku dhaafin casharada si maalinle aan usoo gelino. La wadaag asxaabtaada waadna ku mahadsantihiin dhammaan. Casharkeeni wuxuu ku saabsan yahay the common questions. Su-aalaha inta badan laisweydiiyo, su-aalaha markasta laisweydiiyo ama qof kasta isweydiiyaan ama dadka ay iswareystaan ayuu ku saabsan yahay casharkeeni. Casharkan wuxuu ku saabsan yahay the common questions. Waa conversation, wada sheekaysi u dhexeeyo laba qof, kaasoo ku saabsan su-aalaha inta dadka badan ay isweydiiyaan. Marka su-aalaha ka faa'iideysta, su-aalaha jeceshahay laga yaabo inaa qof markasta dadka aa weydiiso ama lagu weydiiyo su-aalahaasoo English ah. Marka English waaye, in English waxaan ku fasiraynaa af Soomaali baan ku fasiri doonaa insha Allah. Marka ha laga faa'iideysto qaabkii loogu dhawaaqi lahaa iyo micnahoodii wada socda. Conversation, wada sheekaysi. Conversation, wada sheekaysi ama wada hadal laba qof u dhexeeyo. The common questions waxaa la dhahaa the common questions, su-aalaha inta badan laisweydiiyo. Su-aalaha inta badan laisweydiiyo ayuu ku saabsan yahay casharkeena maanta. A ayaa hadlay, A iyo B ayuu u dhexeeyaa. A ayaa hadlay, wuxuu dhahay magaca Moha ayaan u wadanaa. Moha Maxamed Amala loo soo gaabiyey. Moha marka wuxuu dhahay do you know ma taqaanaa to speak English? Englishka ma ku hadli kartaa ayuu weydiiyey saaxiibkiisa. Do you know ma taqaanaa to speak English? Englishka ma ku hadli kartaa? P ayaa hadlay, wuxuu yidhi yes waan ku hadli karaa. Yes waan ku hadli karaa. P ayaa hadlay marka where did you learn? Where did you learn? Halkeed ka baratay Englishka? Where did you learn? Halkeed ka baratay Englishka? P ayaa hadlay I learn in college. Waxaan ka bartay macadka luuqadaha lagu bartay ayaan ka bartay. I learn waxaan ka bartay in college ayaan ka bartay ama macad saa u taqaanid. A ayaa hadlay marka dhahay you speak really well. Si fiican baad uga hadashaa Englishka. Si fiican baad u taqaanaa Englishka. You speak really well. Waa ku hadashaa really well, si fiican baad uga hadashaa runtii ama si fiican baad u taqaanaa Englishka. B ayaa hadlay marka wuxuu yidhi thank you waa mahadsantahay. Thank you waa mahadsantahay. A ayaa hadlay how long have you been in the UK? How long have you been in the UK? Waqti intee la dhan ayaa joogtaa Ingiriiska, wadanka Ingiriiska waqti intee la dhan ayaa joogtaa? How long have you been in the UK? Waqti intee la dhan ama muddo intee dhan ayaa joogtaa wadanka Ingiriiska? P ayaa hadlay 3 weeks uu dhahay 3 toddobaad baan joogaa. 3 weeks 3 toddobaad ayaan joogaa. A ayaa hadlay is your wife with you? Is your wife with you? Naagtaadana ma kula socotaa? Is your wife with you? Is your wife with you? Naagtaada ma kula socotaa? P ayaa hadlay, wuxuu dhahay yes she just got here yesterday. Maalintii shalay ahayd bay imaatay. Maalintii shalay ahayd bay ii timid ama ii imaatay ama halkaan imaatay, Ingiriiska imaatay. Yes she just got here. Shalay unbay imaatay halkaan. A ayaa hadlay have you been to US before? Weligaa ma tagtay wadanka Mareykanka? Have you been to US before? Weligaa weligaa ma tagtay wadanka Mareykanka? P ayaa hadlay, wuxuu ugu jawaabay no maya I have never been there. Weligay halkaas ma tagin. I have never been there. Weligay halkaas ma tagin. Marka casharkeeni weli wuxuu u dhahayaa conversation laba qof u dhexeeyo waaye. The common questions, su-aalaha inta badan laisweydiiyey ayuu ku saabsan yahay.
marka laga faa'iidaysto insha allah. Casharka waan ku celin doonaa markii labaad ayaan ku celin doonaa. Conversation, wada sheekaysi. The common questions, su-aalaha inta badan la isweydiiyo. The common questions, su-aalaha inta badan la isweydiiyo. Ayaa hadlay, ma waxaa wadanaa. Moha, do you know to speak English? Ma taqaana inaad ku hadasho luqadda Ingiriishka? Do you know to speak English? Ma ku hadli kartaa luqadda Ingiriishka? Marka yaasaa su-aasha weydiiyey. B ayaa hadlay, yes waan ku hadli karaa. Yes waan ku hadli karaa. Where did you learn? Halkeed ka baratay? Where did you learn? Halkeed ka baratay? I learn in college. Waxaan ka bartay macadka ama college-ka ayaan ka bartay. I learn in college. College ama macad ayaan ka bartay. Ayaa hadlay, markaas wuxuu dhahay, you speak really well. Si fiican baad uga hadashaa. You speak really well. Si wanaagsan baad u taqaanaa luqadda ama aad uga hadashaa. B wuxuu dhahay marka, thank you, waa mahadsantahay. Ayaa hadlay, how long have you been in UK? How long have you been in the UK? Waqti ama muddo intee la dhan ayaad ku sugnayd wadankan Ingiriiska? UK waxaa loo soo gaabiyey United Kingdom. United Kingdom, Ingiriiska ama saa u taqaan Ingiriiska ama United Kingdom ama UK waa isku mid. wadanka Ingiriiska ee la dhahaa, marka saasaa loo soo gaabiyey. UK waa loo soo gaabiyey United Kingdom. Marka how long have you been in the UK? Waqti ama muddo intee la dhan ayaa ku sugnayd wadanka Ingiriiska? B ayaa hadlay, marka wuxuu dhahay 3 weeks. Muddo 3 week ayaan ku sugnaay. 3 weeks, 3 week ayaan ku sugnaay. Ayaa hadlay marka, is your wife with you? Su-aal weydiinaa weli. Is your wife with you? Naagtaada ma kula socotaa? Is your wife with you? Naagtaada ma kula socotaa? B ayaa hadlay, yes way ila socotaa. She just got here yesterday. Shalay unbay halkan imaatay. Shalay unbay halkay timid u dhaa ii imaatay, waa ila joogtaa hadda. Ayaa hadlay, have you been to US before? Weligaada ma tagtay wadanka Mareykanka? US-na waxaa loo soo gaabiyey United States. Marka US baa loo soo gaabiyey Mareykanka ama America waxaad ahaydba. Marka have you been to US before? Weligaa ma tagtay wadanka Mareykanka? Marka B ayaa hadlay, no I have never been there. Weligay ma tegin. I have never been there. Weligay halkaas ma tegin u dhahay. I have never been there. Weligay ma tegin. Casharka marka halkaas intaas ayuu ku kooban yahay. Aada uma badna casharka caawa. Waxaan filayaa inaad ka bogateen, aad kasii bogan doontaan inta kalena. Insha allahu tacaala casharka waxaan sii badan doonaa. Kadib aan qeybaha garaamarka iyo qeybaha dada aan u gali doonaa. Qofka jecel inuu luqadda barto marka hore waa inuu iska dhisaa. Inta badan conversationadii waxaa lagu bartaa jumladooyinka, sentences. Garaamarka waxaa waaye confusion waaye, aada u adag yahay. Soo ardayda hor kale ma qabsan karaan. Marka waxaa wanaagsan inaad marka hore luqadda xarfo badan aad ka fahantid, so that garaamarka iyo new words adoo kugu cusbin inaad garaamarka aad u tagtid ba aada u wanaagsan insha allah. Marka casharkan halkaas caawa ku noo joogo insha allah. ilaa iyo casharkan xigo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.